السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي قاليقة كسر وهذا مركز علمي تك يوتيوب channel كتاك عصب سبسكرايب له هدي أنا لشوفت أنا لسي جوج أو فيديو كان لايك ده شيرنا ده سيو جارو ضد فرب بدن كومنت تقولنا وأركتدينا هذه المهتمين صاحبي قاليقة فيديو كمان توحان وجه هذا الدونا قابك أتكون دورنا هيت لابتوب كاستعمال هيت فيديو إديتين مركز الدورنا يصير لابتوب أو استعمال شيء فيديو إديتين وكدوين هاي كوكله سيدو كله أبليكيشن هذا أما سوفتوير هذا loo isticmaalo video editing ayaa ayagana waxa ay doortaan laptop gaar ah ama specification qaas ah ay u baahan yihiin hadaba video gudihiisa ayaan ugu hadli doonaa aan isla socono sidoo kale wax kasta oo meeshan aan ku xuso sida laptopyada oo kale aan meeshan aan ka sheego waxa aan soo gali doonaa linkiga hoose description halkaas ayaad ka akhri doontaa oo laptopyada aan sheego oo kale meeshaas ayaad ku arki doontaa aan ku socono saaxiibayaal laptop markii aad dooranaysid arabtina u isticmaashid video editing number 1 waxa aad ku dooranaysid waxa weeyaan processorkiisa weeyaan sidoo waxa jiraan processor badan ayaa jiraan oo kala duwan sida Core 3 Core 5 Core 7 iyo Core 9 markaas processorka ugu hooseeya midka ugu hooseeya ee aad qaadanaysid waxa weeyaan Core 5 wax ka hooseeya ha qaadanin haddii aad heli kartid Core 7 waa okay Core 9 haddii heli kartidna kaba si fiican markaas Core 5 wax ka hooseeya ha u qaadanin video editing halkaas waxaan uga gudbayaa qaybta processorka sidoo kale laptop marka aad dooranaysid waxaad ku dooranaysaa generationkiisa ama sanadkiisa ama jiilka oo yahay markaas sidoo waxaa jiraan generation badan sida generation 1 generation 2 generation 3 generation 4 5 6 7 8 9 10 11 hadda waxa lagu jiraa generationka 11 ayaa lagu jiraa markaas generationka ugu hooseeya ee aad qaadan kartid ayaan kuu sheegayaa markaas waxaad qaadan kartaa 6 generation laptop ka hooseeya ha u qaadanin video editing waan filayaa inaad fahantay 6 generation iyo wixii ka sareeya ayaad u baahan tahay inaad isticmaashid video editing inta saddex uga gudubno qaybta generation kana sidoo kale laptopka waana ku dooratid RAM-ka ugu hooseeya ee video ku edit garay kartid waxa weeyaan 8GB oo asna aad u culus markaas halkaas waxaad ka fahmi kartaa inuu 8GB-ga uu yahay meesha ugu hooseysa ee lagu edit gareeyo video markaas waa inaad dooratid 16 ilaa 32 ama 64 haddii aad heli kartid halkaas waxaa kaaga cad markaas in aadan video editing u isticmaali karin laptop RAM-kiisa ka hooseeyo 8GB waa inuu ahaadaa 16GB ama 32 sidoo kale laptopka aad dooranaysid waa inaad ku dooratid screen resolutionkiisa ama displaygiisa waa inuu ahaadaa 1080 ama wax ka sareeya oo ahaadaa 1080 ama 4K 2K iyo wixii ka sareeya waa inuu ahaadaa sidoo kale storage-ka laptopka waa inaad iska saxdid oo laptop aad soo qaadatid SSD ah SSD-ga marka uu laptopku yahay aad ayuu u fududaanayaa wax walbana waa ay ku fududaanayaan markaas waa inaad ku dooratid laptopka storage-kiisa oo ahaadaa SSD weerarna storage-kaas oo ahaadaa 256 iyo wixii ka sareeya ama 512 ama 1TB sidoo kale size-ka laptopka aad ku dooran kartid ee ugu fiican waxa weeyaan waa inuu ku ahaadaa 14 iyo wixii ka sareeya 13 aad uma qurux badna markaana waxaan kula wadaagayaa fikrad ahaan laptopka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo video editing sidoo kale wax walba oo meeshan aan ku sheego oo laptop ah linkiga hoose ee description-ka ayaad ka heli kartaa hadaba laptopka ugu wanaagsan ee xilligan ee loo isticmaalo video editing waxa weeyaan Dell XPS waa laptopka ugu wanaagsan video editing kaas ee xilligan loo isticmaalo in wax lagu edit gareeyo sidoo kale waxa uu leeyahay screen resolution oo aad u sareeya ayuu leeyahay 4K iyo wax ku duubaa ama oo ku edit gareyn kara sidoo kale RAM fiican ayuu leeyahay sidoo kale graphics waa wanaagsan yahay waa laptop slim ah oo fudud aad iyo aad mahadsantiin saaxiibada qaaliga waan filayaa inaad wax uun ka faa'iideen haddii aad wax ka faa'iideen la sii wadaaga saaxiibadiina si ayagana wax uga faa'iidaan wixii aragtiyana xagga commentiga ayaad igu soo reebi kartiin aad iyo aad mahadsantiin saaxiibada qaaliga inta ku kulmi doono video xiga waxaan ka tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi